gudoomiyaha aqalka sare iyo ra'iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa ka qayb galay munaasabad ay ku qalin jabinayeen in ka badan 1000 arday oo dhameystay kuuliyada kala duwan. Nimca Maxamed Bashiir ayaa warkaas inooga soo dirtay magaalada Muqdisho. kulliyadaha dhaqaalaha, siyaasadda, maamulka, culuumta, tiknoolajiyadda iyo siyaasadda dibadda ayaa ka mid ahaa kulliyadaha ay dhameysteen ardaydan maanta qalin jabisay. Cabdicasiis Cabdi Samed, gudoomiyaha jaamacadda Joobka iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir Taabid Cabdi Maxamed, ra'iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda Soomaaliya Mahdi Maxamed ayaa wadajir u la hadlay ardayda qalin jabisay. runtii waa farxad, waxaan isleenahay qof kasta oo maanta halkan soo istaago waxa uu mudan yahay in uu sheegay uu hambaleeyo ardaydaas tirada badan ee maanta qalin jabinaysa oo runtii isugu jirta gobolka Banaadir oo ay ka qalin jabinayso 892 arday iyo gobolka Hiiraan